soo dhawaada ciyaal aan booqana bandhigga xigmadaha ku soo dhawaada xigmado xul oo ni hadiyey qalbi saafi ah wax walba oo adduunka dul yaala waa in aad ka tagtaa amase uu isagu kaa tagaa marka laga reebo allah subxaanahu wa tacaala mooyaan oo haddii aad dhankiisa aaddo waa uu ku soo dhoweynayaa haddii aad ka tagtana wuu kugu yeedhayaa mahad eebbe iska leh ee dhankiisa ogow ha isku dayin in aad noqoto qof aan gafin ama aan qalad gelin sababtoo ah waa wax aan suurtagal ahayn balse noqo qof gefkiisa wax ka barta oo mar kale ka gaashaanta mararka qaar waxaa dhaca in aad kelinimo dareento adiga oo dad badan kula joogaan isla sidaa oo kale mararka qaar waxaa dhaca inaad farxad dareento adigoo keli ah sababtu ma ahan tirada cidda kugu hareer joogta iyo cidda aan ku hareer joogin balse waa cidda qalbigaaga ku jirta ee la deriska ah qalbigaaga dadka wanaagsan waa kuwa ay isla markiiba xusuustooda ku soo dhaca nimcooyinka ay ku sugan yihiin ka hor inta ay xusuusan dhibka ay ku sugan yihiin fadlan mar walba xusuusnaaw nimcada alleh uu ku siiyey sababtoo ahayd dhib walba oo kugu dhaca marnaba kama weyna nimcada uu allah gaarka kuu siiyey haddii quruxdu ay indhahu soo jiitaan ogow dhaqanka wacani waxa uu soo jiitaa qalbiga quruxda dhabta ahi ma ahaan tan jirkeena ee waa tan qalbiga ee habdhaqanka suuban ku saleysahay sida ay kelmada wanaagsani kuu raaligeliso oo kale ayay khayrkaana u raaligelisaa sida ay kelmada xun kuu dhibto ayay khayrkaana u dhibtaa fadlan carabkaaga dhowr oo ilaali xaaraantu nafta ma deeqdo si walba ay u badan tahay xalaashuna nafta ma deeqi weydo si walba ay u yar tahay ogow muhiimadu ma aha badnaanta waa barakada xaaraantu nafta ma deeqdo si walba ay u badan tahay xalaashuna nafta ma deeqi weydo waayo si walba ay u yar tahay ogow muhiimadu ma aha badnaanta ee waa barakada waa waxa barakada indhaha waxaynu xidhan karnaa kolkii aynu ilmeynayno riyoonayno iyo kolkii aynu cid habsiinayno sababtoo ah waxyaabaha wanaagsan ee nolosheena ku geydaaman halka aynu ka aragna ma ahan indhaha ee waa qalbiga marnabaha ka quusan guushu gebi ahaan waxa ay xidhantaa waxyaabaha aad aaminsan tahay ee ka dhex buuxaya maskaxdaada dadka curyaamiinta ahi ma ahan dadka ay ka maqan yihiin qayb ka mid ah laxaadadooda balse waa kuwa noloshooda ka aaminsan fikir been ah oo si toos ah u curyaaminaya inkastoo ay leeyihiin jir caafimaad qaba xigmadda maanta adduunku waa been macaan badan balse geeridu waa run xanuun badan